بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaan ku qoranayaa shijrayd aan ka hadlayo Faysal Ali Waraabe wuxuu barmadow ku noqday Somaliland ayuu barmadow ku noqday xarcad ayuu wuxuu duulay Hargeysa intuu ka duulay Brussels oo Soomaaliya uu shirku socdo oo aanay cid u igmatay jirin oo aanay jirin cid u dirsatay وأكتينا مركي سوماليا ولا هذلني صدق لبضع حسب قرن يحسبي مركا لبضع حسب قرن لبضع حسب صدق حسب وها كتر شيء لبضع قولة قلت قولها وكيل هذا أيام المري مجازال الصوماليا عن الله هذا الله وشركي لندن وهذا المركب بلوضي شرعي أيام المري لبضع قولة عديي ولا باسكريي ساسا Soomaaliya lagu la hadlay shirkooda wax ka badan London hada bergi dhaweyto oo Brussels tagay keligii ba tagay tano gaara oo isagu tagayay oo Soomaali weyna oo dantiisa oo wax aan Soomaaliland shaqo ku lahayna ayuu farmaajo halka uu tagay oo yiri saaxiib baan nahay markuu soo noqday ee ummadii Soomaaliland la yaabtay ayuu ummad dad wax qabsaday bay Soomaaliland ka daba qaylnaysaa markaasuu waliba wuxuu yiri telefoonkayga waxa ku saaf gareysan farmaajo Brussels farmaajo Nairobi farmaajo Dubai farmaajo Muqdisho ninkii Soomaaliland baabiinayay ee ka soo horjeeday ee qadiyadeena la dagaalamayay ayuu leeyahay meel kasta moobilkayga oo farmaajo joogo igu saaf gareysan yahay maninkaas Soomaaliland dan u haya maninkaas qadiyada Soomaaliland dan u haya maninkaas aan ahayn dilaal maninkaas xisbi qarana away Soomaaliland way ka tashatay inay ka tashatay waxa sheegay 2011 madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Siilaanyo habeenkii saqdii dhaxay ayuu TV-ga soo taagay oo yiri Soomaaliland baa ku nacday oo ku dooran weyday oo ku nacday oo ka tashatay markaasaad meel kasta xasarad inta shaqadaada iyo xisbigaaga ka soo bixi weyday meel kasta xasarad la taaganta xasarad iyo propaganda ee la taaganta waa Soomaaliland baa ka basaas baa hay'ad muxuu ahaa gaani wanikii gaani iyo ufo gaani baa heshiisiinaya gaani la shaqeeya ee habeen saddexaadkiina de la qabtayba markii gaani la shaqeeya habeen saddexaadkii iyo habeen afraadkii ayaa la qaqatay inta halka shirka xaafada shirka Hargeysa ugu yimi Maxamed Baaruudiyo Barbaraawiyo raga imika jooga nool ayuu ugu yimi oo gaani waa nin cusub inagu manihin macaarad la shaqeeya waninka gaani la garanayo wuxuu Soomaaliland soo markiyay iyo sidoo 43 iyo boqol ka isku xidhay waninka koobiye 80 bishii 11aad laha la shaqeeya gaani u fokulaha waninka gaani loo shaqeyn jiray markii isaga la soo daayay waninka uu gaani u shaqeynayay ee gaani yiri igala shaqee Hargeysa igala shaqee taariikhdiisu waa taa waninka maalintii dhawato ka yimi Imaaraadka waninka yiri baasaboorka Somaliland waa la fasaxay waa la qaadanaya Imaaraadka fasaxay maxaa iminka shaqaalii DB Wallka maxaa lagu xidhay baasaboorka Soomaaliya waa nin iska sheega wax doono waa nin xisbigii ka dhigtay shandad u tuurta ku sito oo marba Brussels la aado oo marba meel la aado marba Dubai la aado away Somaliland way ka tashatay Faysal waxay uga tashatayna saddex jeer buu soo sharaxay markii uu dambeysay 4% bay siiyeen sidee buu xisbi 4% iyo 40 helay 40 jiray sidee buu soo dhicdhii karaa sidee buu oran karaa waxay ku xidhan dad xafiis ku leh Garowe wadana waa xisbi qaran waa xisbi taageerada ummadda haysta waa xisbi 4% iyo 40 haysta doorashada kaliya ma qaban karo laba xisbina ma qaban karaan dastuurkeena ay ogoleen saddex xisbi waa gelayaan wadanina way gelaysaa waxa kaliya ee la diiday waxa weeye commissionka ciyaarta marka la ciyaarayo de George baa la sameeyaa George iyo laba la taliyo
joog kala taliya away commission kan imika jooga wadani kalsoonidii bishii saddexaad 2018 bishii saddexaad maaris bay kala noqotay wax kalsooniya oo ay u haystaan ma jirto waxa weeye guurtooda talaba gaadheeno waqtigoodii doorashada oo bay ka dib mariyeen marka waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland waa inuu commission kala diraa waa inaan warqadii 14 page ee aan soo saaray ee aan u geynay oo inuu gudu saaraa waa in la soo baaraa waa in baarlamaanka la geeyaa waa sharci 2008 bishii labaad markuu gudoomiye ku xigeenka Musabbix xina maanta Musabbix isaga warqad qoray uu leeyahay waxay ku milmeen commissionku waqtiga joogay ee Sweden uu gudoomiye u ahaa waxay ku milmeen mid dawladda ku milmeen dawladda aad intaas uga dhigay anagu 14 page ayaan soo saaray oo aanu eedoodii ku soo qoray commissionka waxaan leeyahay way inay iscasilaan haddii aan kalsoonida haysan way inay iscasilaan faysalan yaan oo oran laba xisba gelaya laba xisma geli karaan waa qeyr dastuuri waa xaraan awee madaxweynihii hore ee Siilaan sida Faysal Mukuyin maalintii loo watay markii xisbiyadu shirayeen Musabbixina wuxuu yiri SNM baa goolahoodii dhexe qabsan kari weeday Faysal Bayaaf SNM baa goolahoodii dhexe qabsan kari weeday محمد مدحوينه ugu jawaabay madaxweyne Musabbix ma ugu jawaabay waa lagu nacay faqash baad ahayd basaas baad ahayd way saka celinayna buu sida uu madaxweynuhu isaga celinay ayaa wadanina iska celinaysa Faysal oo wuxuu yahay ummadda u soo bandhigaysa waayo ummadda cadaysay oo tiri boqolkiiba 4 siisay markaasuu soo taagan yahay inuu iscasilaabay oo xisbiga iska casilo oo xisbiga hogaamiye cusub sameeyo oo ummadda Soomaaliland kalsoonideeda hanta saasay Faysal sameeyo maalinba inuu xisbi maalinba ku boodo marka uu Musabbix lahaa ummadda ku nacday oo wala saka celinayna maxaa joogay saddexda xisbi qaran baa goob joogaha Sonsaf baa goob joogahay madaxweynayaashii hore goob joogaha marka la leeyahay waa la saka celinaya faqash baaday faqash hal doorka Soomaaliland baa joogay golaha lagu leeyahay faqash baada waa la saka celinaya Faysal marka labadii madaxweynaha imika joogay madaxweynihii horeba taariikhda uu sameeyay waa taa taariikhdu fana waa gaani la shaqeyn jiray Faysal marka taariikh madow ayuu Soomaaliland ku leeyahay waxaan ku talinayaa inuu xisbiga haga kula jira ka soo dhex saaray hogaamiye ee aanu ummadda hor taagnaan waagii bari aanu ummadda oo marba cayda aanu ummadda la hor taagnaan ummadda aan la hor taagnaan ayaan ku talinayaa Faysal way bari madow ku noqday Soomaaliland saasaan ku salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh